السلام عليكم soo dhawaada channelka Muhanas sida idin ballan qaaday waxa weeyaan inaan ka soo hadlo cashir caafimaad ah maanta waxaan noo bilaabayaa misaan idin barayaa cashir ku saabsan hypertension mise dhiig karka ayaan ka hadlaynaa maanta oo ah dhiig karka mise xawaaraha dhiigga markuu aad u sarkaco hypertension waxa la yiraahdaa intermittent or sustained elevation macnaha si joogto ah markay u sareyso diastolic pressure-da waa midda hoose dhiigga hoose markuu ka bato mise uu la mid yahay 90 ml miseba tan systolic mise midda sare ay tahay 140 ml marka ay tahay cabirkan waa in la cabiraa saddex waqti ee kala duwan usbuuc saddex waqti ee kala duwan marka la cabiro ayaa lagu sheegi karaa qofka oo aad u sareyso baa lagu sheegi karaa qofka inuu qabo hypertension high blood pressure mise dhiig karka laba nooc ayaa loo kala bixiyaa labada nooc midka koowaad waxa la yiraahdaa primary hypertension mise essential hypertension primary hypertension ka waa idiopathic waxa keena lama yaqaano wax hadda lagu cadeyn karo waxaas ayaa keena la dhihi karo malaha waxa kale oo jira mid loo yaqaan secondary hypertension oo ah wuxuu ka yimaadaa xanuun kale waa la yaqaan waxa keeno oo wax la taaban karo waxaas ayaa qofku keenay ayaa la dhihi karaa marka hadii aan u dhaadhacno secondary hypertension ka waxyaalaha keeni kara waxa kamid ah caused by waxa keeni karo renal failure qofka kaliya fariistaan mise kaliyaha ay howlgab noqdaan qofka markay kaliya fariistaan mise howlgab noqdaan waxa dhacayso in ay ka soo bixi waayaan biyihii tirada badnaa ee ka soo bixi jiray ee kaadida soo raaci jiray marka kadibna qofka plasma volume-ka mise biyaha jirkiisa ku jiro ama biyaha plasma-ga ayaa kor u kacay oo aad u badanay kadibna wuxuu ku keenaysaa wadnihii inuu qaadi waayo biyaha tirada badan ee dhiigga ku jiro qofkina pressure ay ku kacdo waxa kale oo keeni kara wax la yiraahdo coarctation of the aorta waxa weeyaan markii isku soo dhawaato aortada mise hanbowlaha jirka bini'aadamka ugu weyn ee aortada la yiraahdo ee dhiigga jirka dhiigga siiyo qaybaha kale ee jirka dhiigga u qaybiyo markuu isku soo dhawaado ayaa keeni karta in qofku pressure ku yimaado waxa kale oo qofka ku keeni kara pressure wax la yiraahdo endocrine disorders xanuunada ku dhaca qanjirada soo deeyo dhacaamada jirka tusaale xanuunada waxa kamid ah Cushing syndrome mid la yiraahdo Cushing syndrome waa xanuun ka yimaado qofka markuu jirkiisa ku bato cortisol dhacan la yiraahdo inta badan Cushing syndrome waxa laga qaadaa daawada camal dexamethasone abuse qofka dexamethasone daawo la yiraahdo bararka iyo waxyaalaha loogu talagalay markuu si xun u isticmaalo ayaa laga qaadi karaa Cushing syndrome endocrine disorders ka kale keeni kara waxa kamid ah pheochromocytoma xanuun la yiraahdo pheochromocytoma waa xanuun ku dhaco mise buro ku dhacdo adrenal glands qanjaraha saaran kaliyaha korkooda ee soo daaya dhacaamada marka pheochromocytoma xanuunka la yiraahdo uu keeni kara waa buro ku dhacda adrenal glands mise qanjarada kelida kor saaran oo soo daaya catecholamines wax la yiraahdo soo daaya burada marka kadibna hypertension ayaa qofka ku imaanaysa dhiig karka waxa kale oo keeni karo pregnancy gabar markay uur qaado mise ay uur leedahay waxay khatar ugu jirtaa inay pressure ay ku dhacdo mise pressure-keedu uu kor aado qaasatan preeclampsia wax la yiraahdo oo gabdhaha markay uur ka qaadaan ku dhaco drugs daawooyinka qaar ayaa pressure ka kiciyo waxa kamid tusaale daawooyinka NSAIDs xanuun baabiyaasha caadiga oo taqaanaan sida paracetamol iyo brufen-ka waxa la yiraahdaa 5 mm mercury ay pressure ku daraan oo kor u qaadaan 5 mm mercury ay ku daraan daawooyinka kale la abuse gareeyo IV la isku duro maxaan ku dhahaa waxyaalaha dhan cocaine-ka heroin-ka waxyaalaha dhan pressure kor u qaadi kara waxa kale oo qofka pressure ku keeni karo family history familygiisa waa hidaraac qofka familygiisa ku keeni karto waxa kale oo ku keeni karo race macnaha sinjigiisa ama meesha heebta ka soo jeedo sinjigu ka soo jeedo tusaale dadka Afrikaanka ayaa qatar ugu sii jiro inay pressure ku dhaco dadka Afrikaanka ayaa qatar ugu sii jiro waxa qofka qatar u gelin karo pressure mise ku keeni karo stress walwalka emotional stresska walwalka tirada badan wuxuu ku keenayaa pressure-ka waxa kale oo qofka ku keeni karo mise qatar u geliyo obesity culayska zaidka mise overweight qofka markuu yahay mise culayskiisu aad u sareeyo waxa kale oo keeni karo high sodium intake qofka cusbada tirada badan isticmaalo mise cusbada tirada badan cunada ku darsado wuxuu ku keeni karaa pressure marka waxaan u gudbaynaa complications of hypertension complications of hypertension waxa way hypertension maxay isku bedeli kartaa dhiig karka muxuu isku bedeli karaa xanuun walba inta badan xanuun buu isku bedeli karaa marka hypertension muxuu isku bedeli karaa wuxuu isku bedeli karaa left ventricular hypertrophy
in qofka left ventricle dhinaca left ventricle ee wadnaha dhinaca left ventricle ee wadnaha uu weynaado unugyada maxaan ku dhahay left ventricle ee wadnaha ay weynaadaan waxa kale isku bedeli kartaa myocardial infarction wax la yiraahdo myocardial infarction waxa ay muruqa wadnaha ee myocardiumka inuu jeexmo mise uu dhaawac soo gaaro myocardiumka mise muruqa wadnaha sidiisa muruqaha wadnaha waxay qabaan hamboliyaal coronary arteries la yiraahdo oo maxaan ku yiraahdaa oxygen siiyo qofka hadii pressure-kiisa ay aad u sarakacdo waxa suuragal ah in coronary arteries-ka oxygen ku filan ay heli waayaan marka kadibna dhaawac uu ku yimaado myocardiumka mise unugyada wadnaha waxa kale isku bedeli kartaa pressure-ka waxa kale isku bedeli kartaa mise dhiigkarka isku bedeli karaa waxa loo yaqaan congestive cardiac failure waa wadnaha markuu fariisto mise howlgab noqdo wadnaha markuu howlgab noqdo marka hadii pressure-ka la xadadi waayo oo la control gareyn waayo mise la manage gareyn waayo waxay isku bedeli kartaa congestive cardiac failure mise qofka wadnihiisa howlgab noqdo muruqaha ay jilaac noqdaan dhiigana tuuri waayaan pressure-ka hadii la xadadi waayo wuxuu isku bedeli karaa chronic stroke buu isku bedeli karaa stroke waxa way qofka maskaxdiisa markuu dhiig ku furmo mise dhiig ku filan uu tag waayo marka maskaxdii ay wax soo gaarto marka stroke ayaa imaan karto mise wax loo yaqaan cardiovascular accident CVA waxa kale oo ka imaan karo complication of hypertension waxa kale oo kamid ah renal failure qofka kiliyihiisa inay howlgab noqdaan soo kiliyaha hadii cadaadiska tirada badan ee dhiiga ma xamili karaan qofka kiliyihiisa inay howlgab noqdaan ayaa imaan karto waxa kale oo imaan karo retinopathy oo ah in aragtida indhaha ay wax yeeloowayaan mise retinada meeshii maaragtay aragtida ay qofkii aragtidiisa ay hoos u dhacdo mise shucaac uu ka galo taana waxa keenaysa dhiig tirada badan ee soo galaya xididada maxaan ku yiraahdaa xididada indhaha retinopathy waxaan ku sheegnay retinada ee indhaha markuu dhaawac ku yimaado pressure-ka darteed ama dhiigkarka darteed mise xawaaraha dhiigu indhaha ku soo galaya darteed waxaan u gudbaynaa general management sida guud ee maxaan ku yiraahdaa qaabka guud ee loo dabiibo qofka pressure-ka qaba weight control qofka culeyskiisa waa in la xadidaa mise la control gareeyaa culeyska waa in la control gareeyaa qofka weight-giisa waa in hoos loo dhigaa limit alcohol intake qofka hadduu qamri isticmaalay qamriga waa in laga yareeyaa aad iyo aad looga yareeyaa hadduu qamri isticmaalay qamriga waa in aad iyo aad looga yareeyaa regular exercise qofka jimicsi joogta waa inuu sameeyaa smoking cessation sigaar cabidda waa in laga joojiyaa qofka decrease stress qofka stresska mise walwalka waa in laga yareeyaa waxa kale oo gudbaynaa nursing management mise as a nurse maxaad u samaynaysaa qofka administer prescribed drugs dawooyinku qofka dhakhtarka u soo qoray waa inuu qaataa dawooyin badan baa loo qoraa dadka pressure-ka qaba aad u tiro badan insha Allah cashar kale aan ugu soo hadli doonaa dawooyinka pressure-ka cashar kale ayaan ugu soo hadli doonaa ayagoo qayb ah marka dawooyinku waa inuu qaataa dawooyinka pressure-ka waa inuu qaataa qofka encourage dietary changes as appropriate qofka waa inaad kula talisaa inuu wax ka bedelo cunadiisa waa inuu wax ka bedelaa tusaale cunada uu isticmaalaya waa inay noqotaa mid aan cusbo lahayn mise cusbada ay ku yar tahay waa inay noqotaa waa inuu qofka qaataa cunto aan baruur badan lahayn waa inuu qaataa calories waa inuu iska yareeyaa sababtoo qofka inuu aad u buurto lama rabo monitor waxyaalo si gaar ah loola soconayo loo fiirinayo ayaa jira marka qofku markuu pressure qabo oo dabiibaysid waxyaalo si gaar ah loola soconayo ayaa jira waxyaalaha maxaa kamid ah vital signs calaamadaha nolosha qofka waa inaad ka fiirisaa wadna garaaca waa inaad ka fiirisaa blood pressure waa inaad ka fiirisaa respiratory rate ama inta jeer uu qofka naqaska qaadanayo halka daqiiqo waxyaalaha dhan waa inaad la socotaa waxa kale oo qofka si gaar ah ula soconaysaa signs and symptoms of target and organ damage calaamadaha lagu yaqaan in qofka ay xubnihi fariistaan qofka waxaad ka ilaalinaysaa inay xubnaha fariistaan mise complication tusaale waa inaad ka fiirisaa kiliyaha wax barar ah miyaa jiro waa inaad ka fiirisaa luguhi miyaa barare gacmihi miyaa barare waa inaad ka fiirisaa urine output-ka qofka kaadida caadi imisa ka soo baxaysa meeqa mililiter ayaa ka soo baxaysa 24 saac qofka urine output-kiisa in 24 hours waxa laga rabaa 800 mililiter ilaa 1500 mililiter marka waa inaad la socotaa wax damage ah miyaa ku yimaadi kiliyaha camal
waa inaad ka fiirisaa complications kale wadnaha maxaa dhibaato ku imaani qofka ma stroke baa ku imaani ma congestive cardiac failure ma wadnihii baa fariisanahay mise howlgab noqday waxyaalaha dhan waa inaad ka fiirisaa waa inaad ka fiirisaa response to medications qofka siduu ugu falcelinaya daawooyinka qofka ma ku bogsoonahaya wax improvement mise caafimaad ma laga dareemo waa inaad qofka ka fiirisaa waa inaad qofka ka fiirisaa ood kala socotaa adverse effect wax dhibaato ma ku keeneen daawooyinka pressure-ka ee qofka qaadanaya waxyaalaha dhan waa inaad ka fiirisaa qofka inta ayaan kusoo gabagabeynayaa cashirka hypertension-ka ahaa insha Allah waxaa inooga xigay cashir heart failure mise wadnaha markuu howlgab noqdo aan uga hadli doono subscribe hala saaro YouTube-ka dhiirigelin ay noo tahay like iyo share insha Allah